kulantan waxaan daawadayaal halkaad naga daawanaysaan waa channelkeena Runmal Media alaaba halkan waxa idinkugu soo gudbinaa xogihii u dambeeyay dhacdooyinka caalamka gaar ahaan kuwa ugu saameynta badan waxaana muuqaalkan idinkugu soo gudbin doonaa xaaladda bariga dhexe oo ka sii dareysa Iran oo markaan u muuqata inay adeegsanayso awoodeedii ugu dambeysay isla markaana bartilmaameedsanayso wadamo qaar oo kamid ah Khaliijka Carabta oo halkaasi ay ku yaalaan saldhigyo waaweyn oo Mareykanka uu leeyahay halkaasina laga soo qaado duulaanka Iran xogihii u dambeeyay ayaa halkan idinkugu soo gudbin doona Iran oo gantaalo ku qaraacday wadamo kamid ah dalalka Khaliijka Carabta ruushkana wuxuu cambaareeyay weerarkii wadajirka oo ay fuliyeen Mareykanka iyo sidoo kale Israa'iil ee lagu bartilmaameedsaday Iran waxa sidoo kale muuqaalkan idinkugu soo gudbin doona Sacuudi Carabiya oo garab istaag u muujisay wadamada ee laga soo abaabulayo oo ka tirsan Khaliijka Carabka ee lagu weerarayo Iran xogii u dambeeyay halkan kugu soo gudbin doona iyo sidoo kale xiligan xaaladda sida ay tahay haddii ay tahay markii ugu horeysay ku soo gaaray muuqaalkeena fadlan subscribe inoo dhig gambaleelkana furo si ku soo gaaray muuqaalada kale xiga haddii subscribe inoo tahay muuqaalkan oo share garay like inoo saar si oo gaar asxaab badan oo ku maasantahay daawashadaada Iran ayaa markaan waxay u muuqataa inay adeegsanayso awoodeedii ugu dambeysay oo ay ku joojinayso weerarka wadajirka ah oo ay fulinayaan Mareykanka iyo sidoo kale Israa'iil iyadoo ugu dambeysay weerarkii saake Iran ay ku qaadeen Mareykanka iyo Israa'iil balse Iran ay falcelin weyn ay ka muujisay isla markaana bariga dhexe madaxa gacanta la wada saartay kadib markii jawaab kulul ay bixisay Iran oo ay gantaalo ku garaacday wadamo badan oo kamid ah Khaliijka Carabta iyo sidoo kale Israa'iil gudaheeda wadamada ay gacanta ku hayaan Iran ayaa markii ugu horeysay si toos ah u bartilmaameedsatay saldhigyada Mareykanka ee uu ku leeyahay Khaliijka Carabta sidoo kalena Iran waxay beegsanaysaa fagaarayaal ku yaala goobo dalxiis oo ku yaala caasimada Khaliijka ee Dooxa iyo Abu Dhabi oo ku jiraan waxaana calaamada ku filan duulaanka ay kala kulmayso Iran inuu yahay mid balaaran halka military ahaan loo qaadan karo beegsiga goobaha dalxiiska ee caasimada Khaliijka mid lagu mashquulinayo nidaamka difaaca Iran ayaa horey waxa loogu ogaa kaliya in Khaliijka Carabta inay ka bartilmaameedsato goobaha ay ku yaalaan saldhigyada ee laga soo abaabulo weerarada dalkeeda ee lagu qaadayo kaasi oo ay leeyihiin Mareykanka balse Iran ayaa markaan waxay bedeshay taatikadeedii siyaasadeed oo waxa ay sidoo kale ay bartilmaameedsanaysaa goobaha dalxiiska dabaqyada waaweyn iyo sidoo kale goobaha muhiimka u ah wadamada Khaliijka Carabta maadaama horey looga bartay kaliya inay bartilmaameedsato saldhiga ay leeyihiin Mareykanka Iran ayaa u suurta gashay inay qasaare ay gaarsiiso saldhigyada Mareykanka ee uu ku leeyahay wadamada Khaliijka sida aan horey u tabinay meel aan ahayn Cumaan marka laga hadlayo Khaliijka waxa uu gaaray gantaalka Iran oo muuqaalo lagu baahiyay baraha bulshada ay muujinayeen goobo dab qabsaday isla markaana holac cirka isku sii shareerayay iyadoo gantaalada Iran ay ku dhacayaan goobo badan oo kamid ah wadamada Khaliijka Carabta Qatar iyo Imaaraadka Carabta ayaa sheegay inay xaq u leeyihiin in ay ka jawaabaan weerarada ay dhulkooda ka geysanayso Iran sida lagu xaqiijiyay war-saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda Qatar iyo wasaaradda arrimaha difaaca ee Imaaraadka Carabta iyadoona weerar kasta oo ay dalkan ay sheegeen lagu soo qaado ama Iran ay ku soo qaado inay iska difaaci doonaan balse Iran aysan awood ay ku gaarin maadaama Iran ay tahay wadanka kaliya ee Carabta oo ay ka baqaan wadamada Israa'iil sidoo kale Mareykanka balse marka ay weerar ay ku soo qaadayaan ay xulufaysi ay sameeyaan oo si wadajir ugu soo qaadaan kaliya ee kuma soo qaado hal wadan oo kaliya sanad ka hor waa la og yahay Iran weerarkii ay geysatay in dhigaha farta ay gashteen Mareykanka iyo sidoo kale Israa'iil iyadoona codsi badan loo soo diray Iran laga codsanayay in mar ay wada hadal ay gasho faahfaahin kala duwan waxay ka soo baxayaan qaraxyo waaweyn oo maanta laga maqlay isku taga Imaaraadka Carabta Qatar iyo sidoo kale Bahrain kuwaas oo ku soo aaday wax yar kadib markii saakay ay weerareen Israa'iil iyo Mareykanka Iran isla markaana ay beegsadeen goobo muhiim u ah Iran ayaa la soo warinayaa inay weerartay inta badan saldhigyada Mareykanka ee ku yaala dalalka Khaliijka marka laga reebo dalka Cumaan oo
dhexdhexaadinaya amaba gacan ka geysanayay sidii wada hadal loo kala dhexdhigi lahaa isla markaana nabad ay u kala qaadan lahaayeen Mareykanka, Israa'iil iyo sidoo kale Iiraan. Dadka ku nool Abu Dhabi ayaa wakaalada wararka AFP waxa ay u sheegeen inay maqlayeen qaraxyo xooggan oo maanta ka dhacay caasimadda Imaaraadka kadib weerarkii Mareykanka Israa'iil ee lagu qaaday Jamhuuriyadda Islaamiga ee Iiraan. Caasimadda Abu Dhabi waxa ku yaala saldhig weyn oo uu leeyahay Mareykanka isla markaana weerar kasta oo uu doonayo Iiraan inuu ku qaado halkaas uu u soo maro maadaama Khaliijka Carabta iyo wadamada ku yaalaba aysan ka soo horjeesan karin in Mareykanka saldhigyadiisii uu ka weeraro Iiraan. Inkastoo la sheegay inay ka cabsi qabaan balse Iiraan ayaa ah wadanka kaliya ee markasta u istaagan inuu isdifaaco isla markaana aysan ogoleen in la soo farageliyo oo Iiraan in ay soo fargeliyaan Mareykanka iyo Israa'iil ayna u taagan yihiin mar walba inay iska difaacaan balse wadamo qaar oo Carabta kamid ah ay ka soo horjeedaan Iiraan iyagoo isla ah wadan Muslim ah balse ay ka difaacayaan gaalada oo ay garbaysiinayaan. Wasaaradda Difaaca ee isku taga Imaaraadka Carabta war-saxaafadeed ka soo baxay ayaa waxaa lagu sheegay in gantaalo laga soo tuuray dalka Iiraan ay ku dhiceen halkaasi isla markaana burburka uu ku geeriyooday hal qof oo ka soo jeeda Aasiya sida ay war-saxaafadeedka ka soo baxay lagu sheegay. Inkastoo gantaaladii ku dhacay isku taga Imaaraadka Carabta muuqaal lagu baahiyay baraha bulshada lagu arkayay heerka uu gaarsiisan yahay khasaarahaasi balse ay qariyeen khasaaraha dhabta kaliya ay ku sheegeen in hal shakhsi oo ka soo Aasiya uu ku geeriyooday. Arintaas ayaa dadka qaar waxay u arkaan in ay tahay mid been abuur ah isla markaana la qarinayo khasaaraha dhabta ee ka dhashay ee dalkaasi isku taga Imaaraadka Carabta. Waxay sidoo kale cambaareysay weerarka sii kordhaya ee qatarihiisa bata iyo ficilka fulinimada ay ku tilmaameen waxayna ku nunuxsatay in Imaaraadku xaq u leeyahay inuu jawaab buuxa uu ka bixiyo Iiraan weerar kasta ay ku soo qaado inkastoo uusan awood u ku dhameyn isku taga Imaaraadka Carabta inuu difaaco Iiraan. Ciidamada cirka ee Mareykanka ee ka howlgala saldhigga cirka ee Al-Dhafra ee ku yaala koonfurta Abu Dhabi iyadoona ay la socdaan ciidanka cirka Imaaraadka Carabta. Horey dowladda Imaaraadka Carabta ayaa ugu dhawaaqday in ay si kumeel gaar ah ay qayb ay ugu xirayaan hawadeeda iyadoona taxadar ay ka muujinayaan kadib xaaladda soo kortay. Sidoo kale weerar qaraxyo ah ayaa laga maqlay caasimadda Dooxa ee dalka Qatar halkaasi oo iyana la soo warinayo in laga maqlay jugta culus. Wakaaladda wararka ee dalkaasi Qatar oo soo xiganaysa mas'uuliyiin ka tirsan wasaaradda difaaca ee dalkeeda ayaa ku dhawaaqday in dhammaan gantaaladii ku wajahnaa dalkooda ay qabatay kadibna la soo riday. Inkastoo warkaasi si madax banaan aan loo cadeey karin balse Qatar ee kaliya ay sheegatay in gantaalada ay iska difaaceen inkastoo ay u muuqato ama muuqaalo lagu baahiyay baraha bulshada la arkayay in jugta iyo sidoo kale qaraxyo xoogan halkaasi ay ka dhacayeen sawirro laga soo qaadana ay muujinayeen sida ay Iiraan ay weeraradeeda ugu dartay dalka Qatar iyadoona hore Qatar ee saldhig ku yaala militariga ee ay leeyihiin Mareykanka weerar loogu qaaday ee dalka Iiraan. Gantaalada Iiraan ayaa si gaar ah loo soo wariyay inay ku dhaceen aaga Jufeer oo ku yaala saldhigga ciidanka Mareykanka halkaas oo ay uuro ay ka baxday markii lala eegtay dhowr gantaal. Dhacdadan ayaa timid kadib markii wasaaradda arrimaha gudaha ee Bahrain ay ku sheegtay digniino iyo sidoo kale isdaba joog ah oo ay ka soo saartay barteeda X si seeriga degdega ah la maqlay waxaana ay sidoo kale ku boorisay dadka deegaanka in ay isdejiyaan oo ay jeestaan meesha ay ugu dhow nabadda. dhanka kalena dalka Sacuudi Carabiya ayaa cambaareeyay weerarka Iiraan ay ku qaaday wadamada Khaliijka Carabta iyo sidoo kale qaybo kamid ah dhulka ay haysatay Israa'iil iyadoona Sacuudi Carabiya ay sheegtay in falkaasi uu yahay fal wuxuushnimo ah isla markaana ay ku sheegtay in saddex qodob ay diiradda ay saareyso in ay si buuxda ay u garab taagan tahay Imaaraadka Carabta, Bahrain, Qatar, Kuwait iyo sidoo kale Urdun in Riyaad ay adeegsan doonto dhammaan awoodeeda si ay u taageerto dalalka walaalaha ah iyo talaabo kasta oo ay qaadayaan iyo sidoo kale in ay digniin adag ka bixisay cawaaqibta ka dhalan karta xadgudubka joogtada ah ee lagu sameynayo madaxbanaanida dalalka iyo xeerka caalamiga ah.
Sacuudiga ayaa dhanka kale waxa uu joojiyay mudana hakadgeliyay duulimaadyada diyaaradaha ee garoonka maadaama ay ka cabsi qabaan in Iran ay weerar ay ku qaado dalkaasi Sacuudi Carabiya maadaama ay taageero weyn u muujinayo dalalka sida aadka ugu soo horjeeda Iran. dhinacan kalena hadii aan eegno dalka Turkiga oo la ogaa in uu dhaqdhaqaaq badan uu muujin jiray ayaa markan ka aamusay weerarada ka soconaya bariga dhexe isagoo marnaba aanan ka hadlin weerarka wuxuushnimada lagu qaaday dalka Iran kaasi oo isku garabsanayeen Mareykanka iyo sidoo kale Israa'iil. Tehran ayaa hore u diiday in US sidoo kale Iran ay dhexdhexaadiso Ankara waxayna dooratay Oman taasi oo wajiga wax ku ahayd Turkiga oo doonayay in uu doorkaasi isaga u qaato. dhanka kalena Israa'iil ayaa weerar waxa ay ku qaaday wadanka Ciraaq halkaasina ay ku dishay dad badan oo taageero u ahaa Iran kadib markii Iran ay bixisay jawaabo kulkulul ay ku beegsanaysay wadamada saldhiga ugu yaala Mareykanka. ugu dambeyn madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa horay madaxweynihii isaga ugu horeeyay Obama wuxuu ku eedeyn jiray mid aadan aqoonin xaaladda wada hadalka isla markaana markasta uu weerar uu ku qaado Iran. inkastoo Obama uu ku tilmaami jiray in uu yahay qof aan waxba ka aqoonin wadada wada xaajoodka balse markaan madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa u muuqda mid isaga aan waxba ka aqoonin wadada wada xaajoodka mar walbana Iran uu ku weeraro dulmi wixii xoog ay ku soo kordho xaaladda bariga dhexna muuqaaladan xiga ayaa idinku soo gudbin doona hadii ay tahay markii ugu horeysay ku soo gaaro muuqaalkeenana fadlan subscribe inoo dhegan baleelkana furasi ku soo gaaro muuqaalada kale xiga hadii aad subscribe inoo tahayna muuqaalkan oo share garay like inoo saar soo gaar asxaab badan oo ku maasantahay daawashadaada.